weli ay taagan tahay inaysan wax muuqaal ama waxyaabahan oo kale ay xaalkeedu maraya ilaa ceeb looma moodo Naciimo Joker inay kala hadlaysay taagan tahay haddii caddeyn la keeno baraha bulshada waa isaga tagi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كوسو دعوة channel كبراسة كوسو دعوة channel كتامل كوجو هري دبلي سبسكرايب لجنبلي كتابسين مقالة عقل كوسو جاران دعوة ملو باجوت محا عصبويني هيا دعوة عاوة دعوة الواحد تاجن قبل لقوا مقعوا نعيمة جوكر دوجدين دعوة إن لقوا أيديه إن مقال قلماء أما سكسيا أي شيء طبعا سنة كور iyadoo haatan dib loo soo faagay in muuqaalkaasi ay sameysay iyadu ay sheegtay inaysan waxaas iyadu samaynin saacadda ka dambeeyay waxa dib loo helayaa daawadayaal muuqaaladii qaar kamid ah ay sameeyeen gabadha lagu magacaabo Naciimo Joker ahna jira inta badan dadka ku qoslisa gabadhan ayaa ilaa haatan taagan daawad inay isdifaacdo misana ay sheegtay inaysan arrintan wax luga ku lahayn balse xaqiiqada jirta ayaa daawadayaal in muuqaalo aad u fara badan laga hayo gabadhaani iyadoo TV-yada aad u fara badan ay ka mid yahay TV-ga lagu magacaabo Focus 9, Focus 29, Focus 6, Focus 4 iyo CBC iyo warbaahinno aad u fara badan ayaa arrintan daawadayaal hore uga hadlay iyadoo Naciimo Joker si toos ah u sheegayso in iyada waxaan ay sameysay bulshada Soomaaliyeed ay kula nooshaa magaalada Minneapolis ay ku noolaa karin magaalada Minneapolis maadaama dadka deegaankaasi ku nool ee Soomaalida ay kala kulmayso ihaano iyo baadil u geysanayaan iyadoo ku sheegtay muuqaalkaasi hadda ka hor muddo laga joogo 10 sano dib loo helaya muuqaaladii hadda ka hor ay sameysay tusaale ahaan muuqaalkan ay kaga hadlayso in iyada waxaan ay tried to call the police. I will gonna show everybody to your videotape. He also took pictures of her naked. She soon discovered he was married with 3 children. And when she refused to continue the relationship, he began circulating those pictures at a local Somali mall where she works. Soon he was emailing hundreds of copies for a price. You want this picture, I want to send you. If you have $5, you can have this picture. And then last week, it all became too much for this young woman. The finger pointing, the whispers. And here at the Somali mall where she owns a small shop, she tried to take her own life by drinking bleach. Even when you're married, you're not even supposed to see the body naked of your wife. Community activists. balse haatan muuqaalkaasi ayaa daawadayaal dib loo helay iyadoo muuqaalka aan la daawo karin balse caddeyn buuxda ah in muuqaalkaasi waagi hore la isku diri jiray. Joker, this is Joker. What's up, Joker? Date waa goorma? So waa January 28, 2018. waad ujeedaan hi sheekh waxay ii soo dirtay fiidowga daawada WhatsApp-ka la isugu soo diray ayaa haatan markii lagu dhufto daawadayaal la daawo karin balse cadeynaya sawirka Naciimo Joker iyo qof kale oo sameynaya waxyaabo dhaqan xumo ah balse iyada oo sameysay arintani ay Naciimo Joker weli ay diidan tahay inay qirato in iyada dambigaani ay gashay misana iyada ay ku doodeyso inaysan waxaan sameynin iyadoo hadda ka hor tiri aniga qofkii ugu keena cadeyn social media ama baraha bulshada aan isticmaalo waan isaga tagiyaa dhamaan qof allaale iyo qofkii videogaas hayo fasax buu u qabaa gabayguna waa iga xiran yahay YouTube-kaygana waa delete gareynaya fadlan soo dhig social media anaana kuu fasaxay ballan waxa igu ay axdi page-ka aan ku leeyahay Facebook-ga iyo account-ka aan ku leeyahay Facebook-ga labaan ku leeyahay Snapchat-kayga 3.5 million ka maraya YouTube-kaygan aan hadda idinkala soo dhaxlayo Naciimo Joker kufurtu billahi aan ka faara gud lahayn inaan ka saaro aan delete gareeyo. Naciimo Joker ay sidaan u hadlayso waxa la hayaa sawir cadeen ah oo muujinaya in arrintan ay sameysay sawirkan daawadayaal inta wajeedina ah in Naciimo Joker ay tahay gabadhaani iyadoo oo sameynaysa waxyaabo aan shaxumada balse la qariyay maadaama sawirkan uu dhaawacayo iyadoo daawada sawirkan u jeedo uu yahay Naciimo Joker markii ay sameynaysa aan shaxumada markii arrinta ay sameysay Soomaaliduna ay ogaadeen cambaareen in leeceen fara badan ay la kulantay ay Naciimo Joker ku gacan saartay arrintan iyadoo baash u rogtay in iyada waxaan lagu qasbay ama si qarsoodi wax looga duubo qof saaxiib ay lahayd arrintan uu ka dambeeyay wali barakaato ku gali isagana uu ku baahiyay baraha bulshada.